dagaal waa la galaa horeyna waynu u gallay haddana waynu ku jirnaa laakiin siduu hadda lahaa cali jayte yayna qorshuhu yuu inaga lumin ayaan hal eray oo cabdiraxmaan cabdishakuur uu sheegay oo dagaalkii 7-7 oo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta uu joogo u helanaa xoreynta Soomaali galbeed ayaynu dagaalkaa gallay waa guulaysanay laakiin siyaasiyan ayaa qorshihii nooga lumay laba arrimood oo yaryar ayaan idiin sheegaya ciidankeennu markuu qabri dahre qabsaday Mengistu Haile Mariam wuxuu shiriyey dargigiisii wuxuu yidhi ciidanka qabri dahre qabsaday laba arrimoodba wuu inagaga tayo fiican yahay tababarka uu qabaa waa inaga fiican yahay qalabka uu haystaana wuu inagaga fiican yahay hal shay baynu inagu kaga fiican nahay waxaynu kaga fiican nahay ciidamada cirka laakiin ciidamo cirdhul ma qabsadaan haddii uu dagaalku sii socdo 6 bilood waxaa laynagu qabsanayaa waxaa laynoogu imanayaa Addis Ababa markaa talo hala keeno waxay noqotay in la yidhaaho tag Sovietka oo kolkaas iyaga naftoodu ay markaa qaateen nidaamkii hantiwadaagga ahaa oo kolkaas Sovietku una kolkaa iyaga xumaan u qabin wuxuu u tegay Brezhnev waa buuggii laga qoray Mengistu Haile Mariam afxmaar buu ku qoran yahay anu kaasaan akhriyay wuxuu ku yidhi dalkaygii baa la qabsaday waxaan rabaa taageero wuxuu yidhi waa daalan tahay Black Sea tag oo soo naso wuu xanaaqay oo wuxuu yidhi ma dalkaygii la haystaadi leedahay soo naso wuu ka yimid dagaalkii kolkuu jigjiga ka socdo Maxamed Siyaad ayuu Brezhnev u yeedhay wuxuu yidhi dagaalka ku jooji bartaas jigjiga ku jooji anu ma garanayo kolkaa labadaa arrimood ee Brezhnev labaduba ay Brezhnev ka soo baxeen ujeeddadu ka lahaa ma garan laakiin waxaan isleeyahay oo keliya maskaxdayda yar malaha wuxuu is yidhi hadday jigjiga gaadheen Soomaali dhulkeedii way haysataa ma sidaasuu u fikiray ma aqaan kolkaa Maxamed Siyaad wuu ka diiday halka qorshaheennii siyaasadeed uu ku fashilmay bartaasay noqotay kolkuu ka soo noqday waxaa loo yeedhay Fidel Castro oo 76 halka yimid intuu halka inaga yimid ina yidhi Ethiopia laba dal oo hantiwadaag dhisayaa tihiin Ethiopia inagana kolkaa qorshaheennu wuu socday oo kolkaa magac jabhadeed ayaa xataa ciidamadeennii oo uniformkii laga dhigay ay ku jiraan oo la galay kolkaa dagaal baad Ethiopia ku wadaana ka jooga ayuu yidhi maynaanka stadiumka malaha fara badan oo stadiumkii Muqdisho hadda la yidhaaho maxaa Yarisow loo bixiyey ayaa lagu shiray oo dadweynihii lagu shiriyey oo khudbow halkaa ka jeediyey u leeyahay ha gelina Ethiopia dagaal la gelina laakiin kamaynaan ogolaan ma uu joogsanay wuxuu tegey cadan buu tegey oo kolkaas iyaguna ahaa dal dee nidaamkaa ku jiray waxaa la isugu yeedhay Maxamed Siyaad madaxweynihii Soomaaliya Mengistu Haile Mariam Cali Biid oo Yemen ahaa iyo kolkaasi iyo Fidel Castro wuxuu yidhi saddexdiina waxaad tihiin dal dhisaya nidaamka hantiwadaagga
cadowgu yuu idinka faa'iidaysan ee ha dagaalamina maxamed siyaad wuxuu yidhi waa oggolaadeen labadii kale maxamed siyaad wuxuu yidhi soomaali galbeed oo laysoo raaciyo ayaan ku joogi karaa kaasina halkaasuu ku fashilay nidaamka intaas kolkay dhacday ee uu brezhnev intuu u yeedhay uu ku diiday ayaa loo yeedhay fidel castro wuxuu yidhi addis ababa tag mangistu ha yimaado marka halkaa maxaa ka soo baxay in la abaabulo ciidamada cuba east germany yamanta xataa cadan kolkaa libiya yacni ciidamo fara badan sovietkiina uu yidhaaha wax alliyaala wixii loo baahdaa ayaa bixinaynaa halkaasaa marka dagaal waxaa laynagu soo qaaday aan la malayn karaynin anigaygani indhahayga waxaan saaray diyaarad tank dhigaysa tank yaa ciidankeen haddii sovietku waagaas yacni ha baxaan ciidamada soomaalida ha baxaan laakiin yaa la laynin la baabiin ilaa heerkaasay gaadhay marka hadda waxaa weeye idinkaa hadda gacanta ku haya la dagaalankii cadowgii ugu xumaa ee ina haysta weeye ee inoo diiday wax inaynu la soo baxno raashinkeennii xataa inaan la soo baxno dadkeennii baabiinaya waxaan filaya inay siddeed boqoloo qof ahaa 14 oktoobar qaraxii ka dhacay soobe halkaynuu bixinay intaa dhaawaceena cadad ma lahayn waxa weeye waxaan idhaahdaa anigu 3 arrimood midna ma aha qoladaasi muslin ma aha oo hadday muslim yihiin diinta islaamku waa diin nabadeed weeye miyay samayn lahaayeen maya soomaali ma aha oo hadday soomaali yihiin dadkooda miyay sidaa u layn lahaayeen oo xasuuqi lahaayeen maya siyaasiyiin ma aha oo hadday siyaasi yihiin siyaasigu dadweynaha inuu kasbado weeye oo ileen uu taageero ka helo ileen waa siyaasadoo cod buu raadinayahay laakiin ma u laayeen 3 arrimood oo ay sameeyaan midna ma aha ee waxay yihiin aniga ciddii taqaana ha ii sheega baan idhaha waxaan filayaa hadda gacantaad ku haysiin gacanta ayaad ku haysiin oo haddaad xildhibaana tihiin iyo haddaad senatar tihiin iyo haddaad wasiirra tihiin iyo haddaad madaxweyneyaal tihiin waa loo taagan yahay annagu hadda anigiiyo guddoomiye sheekh aadan waxaan ku ahay waxaan na keenay waxay ahayduun xataa ku talagalkaygu maaha inaanu dad badan iyo waxanago ahay inaynu madaxweynaha intaanu u nimaadno aan ku dhiiri gelinno hawshan uu galay keliya ahayd shirkanna ma ahayn shir aan ku talagallay oo hadda hadalba inaan ka jeedinahayn laakiin maantu madaxweynuhu noo sheegay inaad shirsantihiin caawa hashe halka lagu leeyahay kolkaa waxaan idin leeyahay guulaysta haddaynaan al-shabaab ka adkaan wax kaloon qaban karnaa ma jirto haddaynaan nabad helin oynaan dalkeenna nabad ka dhigin oo maxaynu qabanaynaa anigu hadda sharciga aan sameeyo xaggeen geynayaa ee uu ka soconaya low enforcement buu rabaa sharci kolkaa waa inaan horta dhisnaa nabaddii iyo dawladdii meel marin lahayd sharcigaas markaasay noqonaysaa inaan ka firno madaxweyne waa kugu dhiiri gelinaynaa kolley aniga hadda da'baabaan ahayo tabara sheeganayaaba ma jirto laakiin waa ku taageersanahay waa kugu taageerayaa waa idinku taageerayaa waxaan hayaa waa
afkana waa idinku taageeraya ما شاء الله ha waa idinku taageeraya aad iyo aad baad u mahadsantihiin